salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo tabin gaar ah oo ku saabsan wararka gobolka bariga dhexe iyo waliba xiisada oo sii kululaanaysa qodobadaan idin hayana waxaa ka mid ah dowladda Iiraan ayaa ka jawaabtay hadalka ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka ee ku saabsan in uu aarsan doono marka la eego diyaaradii saaka ay ka soo rideen ciidamada wadanka Iiraan warar kala duwan ayaa ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf oo ah ninka gacanta ku haya malafka wada xaajoodka iyo nabadda muxuu ka yiri arrimihii wada hadalka iyo meesha ay hadda wax marayaan dhinaca kale wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in Israel iyo waliba dowladda Mareykanku ay iska wareysteen arrimaha nuclear-ka ee wadanka Iiraan dhinacyada waxay u muuqanayaan hadda in ay dhinac iska dhigayaan arrinta marinka Hormuz muhiimadan ay siin doonaan wada hadalka nuclear-ka aqobar kamida dalka Mareykanka ayaa tilmaamaya in diyaaradii la soo riday ay sabab u ahayd wada xaajoodka inay hakad galaan isla markaana laga saaro meesha arrintii nuclear-ka sidaas darteedna gobolka bariga dhexe iminka uu liqliqanayo qarkana uu saaran yahay dagaal kale inay ka dhacaan tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa hanaanka diyaaradii helicopterka ahayd ee dalka Mareykanku lahaa loo soo riday farsamada ay adeegsadeen ciidamada dowladda Iiraan ayaa la soo bandhigay taliska Centcom waxa ay leeyihiin tani waxay ahayd qatar weyn oo markasta la filan karay sawirro dayax gacmeed lagu qaaday ayaa muujinaya saldhigga ciidamada Israel ee degan yihiin ee Ramat David halkaasi oo lagu arkay burbur weyn oo soo gaaray kadib markii ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan maalintii shalay ahayd ay si baan ugu garaaceen gantaalo xoog leh qasaraha soo gaaray ciidamada Israel ma waxa uu muujinayaa tabaryarida nidaamyada difaaca hawada ee nidaamkaasi hadda gacanta ugu jira qodobadaasi iyo kuwa kale oo dheeraad ah ayaan ku eegi doonaa barnaamijka khiyaarta ay nala socotay soo dhawaada oo ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu caawa ku dhawaaqay in uu ka aarsanayo dalka Iiraan diyaaradii ay ka soo rideen oo ah nooca qumaatiga u kaca oo lagu soo riday meel ku dhow xeebaha wadanka Oman ayaa waxa soo baxaya in tafaasiil ay ka bixisay dowladda Iiraan hadalka Donald Trump uu goordhow jeediyay oo ku saabsan in ay aarsan doono wasiirka amuraha dibadda wadanka Iiraan Dr. Abbas Araghchi oo la hadlay wariyaasha waxa uu yiri marka la eego ciidamada ku gadaaman wadanka Iiraan markasta waxay keeni karaan qatar iyo isku dhacyo degdeg ah oo soo dhasha isla markaana gobolka ku sii reexa dagaal adag in ay lugaha la galaan waxa uu sidoo kale tilmaamay marka la eego xaaladan cakirnaanta ah ee taagan iyo waliba in Mareykanka uu dul degan yahay wadankaasi inay tahay mid abuuraysa xaalad halisa oo markasta gacan ka hadalka soo dadajin karaysa waxaan u soo jeedinaynaa ayuu yiri Washington inay ciidamadeeda ka fogeeyaan halkan Iiraan haddii kale xaaladdu waxay u ekaan doontaa mid Iiraan aanay isxakameyn doonin waa luqad diblomaasiyadeed oo dagaal lagu laray marka la fiiriyo sida dalka Iiraan ay hadalladan kulul u sii dhigayaan Araghchi ayaa carabka ku adkeeyay in xalka ugu habboon ee lagu yareyn karo qataraha uu yahay in ciidamada shisheeye laga saaro goobaha ku dhow xuduudaha qarankeena ayuu yiri waa Iiraan isagoo si hadlaya waxa uu tilmaamay in marin biyoodka Hormuz uu sanahayn oo kaliya marin caalami ah balse uu yahay biyo ay si wada jir ah u wadaagaan dowladaha Oman iyo dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan Mareykanka halkan kumanaan mayl ayuu u jiraa sida darteed ma naqaana sabab uu u jeedi karo oo aan ka ahayn abuuritaanka xasarad iyo waliba yagleelida colaad cusub oo gobolka bariga dhexe laga sameeya ayuu hadalkiisa ku sheegay hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xiisadu ay iminka aad u kulushahay dhaqdhaqaaqyada soo baxayana ay tilmaamayaan in mustaqbalka gobolka bariga dhexe uu yahay mid halistiisa leh oo aad looga baqayo gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa waxa uu ka hadlay hanjabadaha Trump uu goordhow jeediyay oo ku saabsan wadankiisa inuu ka aarsan doono diyaaradii laga soo riday ee dalka Mareykanku ay lahaayeen taasoo ku dhow biyaha wadanka Oman meel aan ka fogeyn ay diyaaradaha dagaalka wadanka Iiraan ay ku soo rideen diyaaradaasi
Qalibaf waxa uu ku tilmaamay in marka ugu horeysa ay tahay muhiimadda ugu weyn in la siiyo xasiloonida gobolka. haddii Mareykanku uu doonayo dagaal, Iran waxa kaliya oo ay taqaanaba waa dagaal ayuu yiri. Mareykanka inuu la soo degdegana waa mid fiican, waayo isaga ayaa qasaarihiisa arki doona, ayuu ku sheegay qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada. dowladda Iran waxay xariif ku tahay arrimaha diblomaasiyadda, waa mid aan doonayna in xalka madambaysa lagu gaaro. sidaa daraadeed haddii Mareykanka uu u baxsanayo dagaal, ma jiro sabab aan uga celin karno, ayuu hadalkiisa mar kale ku yiri. hadalkan Maxamed Baqir Qalibaf, gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran ka soo baxaya ayaa waxay tahay dowladda Iran inay ku jawaabayso luuqad adag, isagoo tilmaamay in haddii dagaal lagu soo qaado macnaheedu uu noqon doono Mareykanka inuu oortiisa ka raran doono gobolka Bariga Dhexe oo ay garaaci doonaan dana kasta oo Mareykanka ka yaala gobolkan iyo waliba saldhigyada uu ku leeyahay dalalka Khaliijka sida ka dhex muuqanaysay doodiisa caawa. dowladda Iran ayaa waxay iminka u muuqanaysaa in aysan ka garaabayn, waa sida warbaahinta ay u dhigayaan diyaaradii ay soo rideen saaka oo ciidamada dalka Mareykanku ay ku howlgalayeen. Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaamay labadii duuliye ee diyaaraddaasi saarnayd in lagu badbaadiyay dooniyaha iswada oo aan wax naaquuda lahayn, taasi oo loo soo diray kadib markii qayladhaani soo yeertay oo ku aadan diyaaradii in ay burburtay. Mareykanka ayaa hubkiisa iyo waliba qalabkiisa militariga ku waynaya gobolka Bariga Dhexe, iyadoo diyaaradan ay ka mid noqonayso tiro diyaarado ah oo ay ka mid yihiin diyaaradaha qaaliga ah ee Mareykanka ee F-16 iyo waliba diyaaradan hadda laga soo riday ee helicopterka iyo dhowr diyaaradood oo nooca iswada ah oo loo yaqaano MQ-9 Raptor in dowladda Mareykanka dhowr jeer halkaasi looga soo riday. Trump ayaa hadda u muuqanaya in uu farta qaniinayo marka la eego weji gabaxa uu ka qaaday dagaalka ka taagan gobolkaasi Bariga Dhexe. ciidamada Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay nooca diyaaradda laga soo riday iyo sababaha keenay in la bartilmaameedsado. diyaaradan oo ah diyaaradaha casriga ah ee helicopterska ama kuwa qumaatiga u kaca ayaa waxa saarnaa laba ka mid ah duuliyaasha qatarta ee sida weyn loogu tababaray diyaaradaha dagaalka. diyaaradan ayaa loo adeegsan jiray in ay weerarto markabyada ama maraakiibta iyo sidoo kale taangiyada, sidoo kalena ay burburiso ciidamada ku jira difaacyada hore. waxaa ku xirnaa ilaa iyo 3 qoray oo kala duwan oo mid ka mid ah loo yaqaan Firehail, halka mid kalena uu ahaa mid madfaca oo awoodiisa ay gaaraysa 330 mm sida ku qoran diiwaanka diyaaraddaasi. diyaaradda ayaa la sheegay iyadoo duulaysa inay ku dhacday diyaaradda loo yaqaan Shaheed ee iswada ee dowladda Iran ay leedahay meel ku dhow xeebaha wadanka Oman. marka la isbarbar dhigo khasaaraha ka dhashay labada diyaarad ee isweeraray, diyaaradda Mareykanka ayaa qiimo ahaan ku fadhisay iyada iyo hubka saarnaa lacag ku dhow ilaa iyo 60 milyan oo dollarka Mareykanka, halka diyaaradda burburkeeda loo adeegsadana ay qiimo ahaan ku fadhiso oo kaliya 500 oo dollarka Mareykanka, sida ay tilmaamayaan boqorada caawa sida weyn wax u falanqeynaya. dowladda Iran waxay u muuqataa in ay ciyaarayso arrin la xiriirta inay xanuujiso dhinacyada ku soo duulay ee gobolka Bariga Dhexe fadhiya oo ay ka mid yihiin dowladda Mareykanka. sawirro lagu qaaday dayax gacmeed oo la dulgeeyo dhulka laga haysto Falastiiniyiinta, gaar ahaan mid ka mid ah saldhigyada ugu awooda badan ay adeegsadaan ciidamada Israel oo lagu magacaabo Ramat David, ayaa waxaa la sheegay in lagu arkay burbur weyn oo xoog leh kadib markii shalay ay ciidamada dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay si baan u garaaceen. sawiradan ayaa waxaa lagu tilmaamay in la qaaday waqtiyo kala duwan ka hor dagaalka iyo kadib, waxaana la arkay in saldhigyo gudihiisa ay ku qodnaayeen godad waaweyn oo ay sawaariikhda halkaasi ku dhacay sameeyeen sida khubaradu ay tilmaamayaan. sawirka ayaa waxaa lagu daabacay shirkadda falanqeynta sawirada dayax gacmeedka ee Sour Atlas, taas oo muujinaysa wax uu eg gobolku in uu shalay wajahay mid ka mid ah khasaaraha ugu adkaa dagaalka oo dhibaatooyin xoog leh ay ka dhasheen. marka la isbarbar dhigo sawiradii la qaaday Isniinta iyo kuwii la qaaday 5 bisha June, waxaa la arkay isbedelo weyn oo ka muuqanaya mid ka mid ah hangarada diyaaradaha ee ku yaala saldhigga, kaas oo ku dhowaaliyay
magaalo istiraatiiji ah oo dhacda dhinaca koonfur bari ee magaalada dekada leh ee Haifa oo kamid ahayd goobaha shalay sida aadka loo garaacay. si kastaba sawiradu waxay muujinayaan nooc ka baxsan qasaare caadi ah inuu dhacay. waxaa la arkay dhismayaal burbursan iyadoo ciidamada Israa'iilna dhowr jeer oo kala duwan ay ku dhawaaqeen in ay jawaab bixinayaan. saldhiggan Ramat David ayaa horey sidoo kale loo sheegay in uu noqday bartilmaameed weeraradii dhacay intii lagu guda jiray dagaaladii kala duwanaa oo dhinacyada ay iswadaarsadeen. saldhiggan waxaa caadi ahaan ku sugan 5 cutub oo diyaaradaha dagaalka nooca loo yaqaan F-16 iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taas oo ka dhigaysa inuu yahay saldhig istiraatiiji ah. ilaa iyo hadda Israa'iil maanay bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan garoonkaasi diyaaradaha ee la weeraray iyo waliba xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe oo iminka ah mid aad uga sii daraysa. mustaqbalka wadahadalka u dhaxeeya dowladda Iran iyo Mareykanka ayaa khubarada qaar waxay ku tilmaamayaan in uu hadda galay xaalad mugdi ah oo aan la saadaalin karin mustaqbalka meesha uu ku dhamaan karayo. saraakiil Mareykan ayaa sheegay inaysan weli caddayn in wadahadallada nuclear-ka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ay dib u bilaaban doonaan halkii ay ku joogsadeen kadib markii la soo riday diyaaradda ay dowladda Mareykanku lahayd ee lagu soo laliyay ama laga soo lalmiyay hawada badda Oman iyadoo meel ku dhow duulaysa. sida uu qoray wargeyska The New York Times, xaaladda wadaxaajoodka ayaa noqotay baa la yiri mid aan la hubin, gaar ahaan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ballan qaaday inuu bixin doono jawaab argoosi ah. saraakiisha ayaa tilmaamaya in dhacdadan ay qatar gelisay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjiro heshiiska ku saabsan barnaamijka nuclear-ka. ilaa iyo hadda jadwal rasmi ah lama qaban oo ku saabsan xaaladda wadaxaajoodka tan iyo markii dagaalka uu dib u bilowday. ugu dambeyntii Netanyahu iyo Trump ayaa hadda arkaya in uu qatar weyn yahay nuclear-ka wadanka Iran iyo uranium-ka ay bacrimiyeen. waxaanay ku tilmaameen inay tahay qatar weyn oo ka istiraatiijisan marinka Hormuz in tilaabooyin la siiyo. warar soo baxaya waxay tilmaamayeen in dowladda Iran ay ogolayd in uranium-ka ay hakiso bacrimintiisa ilaa iyo 10 sanadood, halka Mareykanku ay ku doodayaan 20 sano. laakiin saraakiil ku dhow aqalka cad ayaa tilmaamaya haddii Iran la gurguriyo inay gaari lahayd 15 sano. hase haatee lama oga sida hadda xaalku noqon doono maadaama taladu ay faraha ka baxday. nabadgelyo.